mucjisooyinka Allah subxaanahu wa ta'ala dadka qaarkii ugu deeqo ayaa waxa ka mid ah ninkan aad aragtaan ayaa hibadiisu ay tahay inaan rasaasta xabadu dili karin isagoo sidoo kale gawadhida waaweyn hadday jiidhaan aan waxba aysan ka qaadin cuntada ugu jecel yahay waa quraaradaha inuu cuno awoodiisuna waxay la mid tahay 360 faras weligiina habeen iyo maalin sidoo u dhashay saacad qura muusan seexan daawadaha filimkan daawanayo waxaan kaaga digayaa inaad isku daydo ficilada uu ninkan sameeyo oo kale inaad samayso ogow inay ku sababi karto inaad ku geeriyoto oo aadan noolaanin mucjisada alle ninkan aanay xabadu dili karin weligiina sidoo u dhashay aan seexan waa wiil dhalinyaro ah oo masri ah waana nin hiba alle u siiyay inuu sameeyo wax aqliga bini'aadamka ka sareeya waana mid aad u adag maanka aadamaha siday ku aaminaan waxa uu sameeyo كريم عبد الله فاضل حسين وانين هودالا waxaana wiilkiisa ku kaxayn kara oo ku jiidi kara gaariga adaragtaan wuxuu alla siiyay wadadka caalamkan ku nool aan siinin Kareem waxa sidoo uu sheegay xubnaha jirkiisa oo dhaqaatiirtu ay sheegeen inuu leeyahay wax kastaba inay yihiin kuwa lamaan sida laba maskaxood laba beer laba wadne afar kaliyood مركز العالمي شعب المركزيه كده البحث العلمي قعدت عندهم وعمل عليه فصليه عندي في ظهري 2 سلسله اللي هي العمود الفقري و4 كليات و2 كبد والمخ والمخ متكرر 2 كل حاجه عندي في جسمي متكرره زياده يعني في عروق نازله كده من المخ تبدا كده نازله لتحت لحد ما طول نازله على دراعاتي كده في اليمين وفي الشمال وفي رجليا لحد رجلي تحت يعني كريم waxa uu sidoo kale sida sonkorta u cunaya waraadaha waxa taa u dheer inuu cunayo masaabiirta oo wax dhibaan marnaba kala kulmaynin waxa uu sidoo kale afkiisa sida xantada ugu calaashanaya sida daragtaan sakiintan wafka ku cunayo Kareem ayaa xoogiisan iyo quwadiisan waxa uu sheegay inuu wax dhiba isaga ama saameeyna aysan ku lahayn Kareem sida uu dhashay habeen qura muusan seexan marka laga reebo daqiiqada yar oo indhaha isku xidho halkaas oo uu ku dareemo inuu in nasashaa ka helo وانا في سن 8 سنين من 8 سنين لحد النهارده وقتنا هذا وانا يعني اكل الجزاز والمواس واللحوم النيه والفراخ النيه والسمك الني اي حاجه مش مستويه بحب اكلها لكن اي حاجه مستويه ما بستطعمهاش خالص اساسا يعني عمره كله من يوم ما اتولدت لحد النهارده 38 سنه ما بنامش خالص اريح جسمي على السرير بس اغمض عيني ولا انام دقيقه ولا اي وقت كان المده ما بنامش خالص Kareem waxa uu si lama filaan markuu jiray cimrigiisu 8 sano uu isku arkay quwaddan Allah subhanahu wa ta'ala ugu deeqay waxaanu bilaabay inuu cuno quraaradaha iyo makiinadaha garka sidoo kale xoog u jecel sonkorta oo markiiba cunaya nusjawaan sonkora القوه دي والصحه دي وبعدين قس القوه بتاعتي لقيت نفسي انا قوتي 360 حصان 360 حصان وانا ممكن بص اقف لك قدام عربيه اي كان حجمها نقل كبير اي حاجه اقف قدام منها تخبطني مفيش مشكله ماشي ونفسي ان شاء الله انا عايز برضو اعمل تصوير قدام القطر بتاع الصعيد اللي انا اقف قدام منه يخبطني او اجر القطر بواير كده حديد واربطه في وسط كده واجره ان شاء الله والحمد لله رب العالمين لا بنفتري على حد ولا بنأذي حد ولا بنضر حد sidoo kale Kareem waxa uu dhalay ubadiriya waxa uu sheegay in saddexdiisa wiil ay hibadani ka raaceen waxa uu sheegay Kareem maruu ka hadlayay ubadkiisa marka qaar uu ka soo tuuro dabaqa koowaad isla markaana ay ku yiraahdaan waxaan u baahanayaa abu hadda ayaan kuulaanay inaad dib noogu celiso dabaqa labaad muuqaalka la daragtaan ama midida uu jirkiisa ku leexinayo waxba kama qaadayso sida ku muuqata waxa uu masaabiir ka tagayaa luuntiisa waa arin aad iyo aad u khatar badan daawadaha daawanayo mar kale waxaan kaaga digayaa inaad muuqaalkan iyo ficilkan samayso sidoo kale Kareem waxa uu ka sheekay noloshiisa gaarka ah waxaan u tilmaamay in cunooyinka dadku ay cunaan uu san cunin Kareem oo ka hadlaya amurahan ayaa faahfaahintiisa waxa kamid ah hadalladan gabagabada barnaamijkan daawadaha qiimaha badan oo ugu weyn Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu doono abuuri karo dadka qaarkiina uu ugu deeqi karo hase yeeshee ficiladan ninkani waa kuwa aad iyo aad u yaab leh balse sida ay soo bandhigeen idaacadaha caanka ee Aljazeera iyo Carabiya ayaa ninkan masriga ahi waxa awoodiisa iyo xoogiisa lagu tilmaamay mid koomkan dadka ku nool aanu marnaba qof awoodiisa oo kala leh adduunyadan uusan marnaba iimaan كريم حسين اسم لن يتكرر في تاريخ مصر خاصة بعد أن أكرمه الله بقدرات تحملية وبنية جسدية تختلف عن باقي البشر. عندما تنظر إلى كريم وتحاوره تجده إنسانا خلوقا متواضعا ومتسما بالبساطة. أما من يعرف هذا الرجل عن قرب فيدرك أنه يملك قوة خارقة
خاصة بعد اعتياده على تناول كؤوس الزجاج والأدوات الحادة كوجبة فطور في كل صباح. جيت في يوم من الايام بشرب كوبايه الحليب، بيبقى نصها حليب ونصها سمنه. بشرب كوبايه الحليب كده، راحت الكوبايه راحت مكسوره، اتكسر. بعد ما اتكسرت الكوبايه بدات ان انا اكل فيها وهي مكسوره في ايدي يعني كده. يبدو أن هذه القوة الخارقة كما سماها البعض التي يحظى بها كريم ستصبح خير وراثة لعائلته، فأطفاله مختلفون أيضا ولا يتأثرون بجروح الزجاج الذي أصبح خير تسلية لهم. أما بالنسبة لوالدهم فعلى الرغم من كل الأنشطة الخطيرة التي يقوم بها إلا أنه يرى نفسه بأفضل حال ولا يعاني من أي مضاعفات صحية. صحتي الحمد لله رب العالمين تفوق صحة البشر. عندي استطاعة أمشي 1000 كيلو 2000 كيلو 3000 كيلو أمشيهم وما أقعدش أريح ولا دقيقة واحدة ولا أريح ساعة. قد يحسد البعض كريم حسين على قدراته الخارقة في الوقت الذي يراه آخرون شاذا عن البقية ويروج لأنشطة خطيرة قد تؤدي إلى وفاته. مركز العالم مش عارف مركز ايه كده البحث العلمي، قعدت عندهم وعمل عليه فصلية عندي في ظهري.